qiso dhab ah warqadii uusan weligii akhrin. asxaabta sharafta badan nagu soo biir YouTube channel Bahar Nahri subscribe no sara channel likek dheh muuqaalkan nagula wadaag rayiga kobantiga mahadsanid. sanadkii 2006 magaalada California waxaa ku noolaa hooyo la oran jiray Maria iyo wiilkeeda keliya Ethan. Ethan wuxuu ahaa wiil aamusnaan badan, qalbi jilicsan, balse murugo qarsoon ayaa la noolaa. maalin kasta Maria waxay u qori jirtay warqad yar oo ay ku dhihi jirtay: wiilkaygiiyow, waan ku jeclahay, adigaa noloshayda. laakiin Ethan weligiis ma akhrin jirin. wuxuu u haystay in hooyadii mar walba joogto. maalin Jimce ah, Ethan guriga kama uusan imaan. saacado kadib booliiska ayaa Maria u sheegay in wiilkeedii isku dilay isagoo ka tegay hal qoraal oo yar. hooyo, waan ka xumahay. waan daalay. markii Maria guriga gashay, sariirtiisa korkeedana ay eegtay, waxay aragtay sanduuq yar. sanduuqa gudihiisa waxaa ku jiray dhammaan warqadihii ay iyadu u qori jirtay, dhammaantoodna lama furin. warqaddii ugu dambaysay oo ay qortay subaxdii maalintaas waxay ku qornayd: haddii aad murugo dareento, isoo wac. adiga dartaa ayaan u noolahay. laakiin wicitaankii weligiis ma imaan. murugada ugu weyn, jacayl badan ayaa jiray, balse wakhtiga isfahamka wuu dhaafay. ku habboon cod murugo leh, musiic hoose, sad piano. thumbnail text: wuxuu dhintay anigoo jooga. ama warqaddii aan weligii akhrin.